salaamullah saaxiibayaal soo dhawaada mar kale muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay hacking laakiin maahan sidaa mooday waxba ma la jabsanayo maanta balse waxaan kugula wadaagi doonaa muuqaalkan ama ku soo gudbin doonaa hackerada ugu khatarta badan caalamka iyo waayihii noloshooda muuqaalkii noo bilaabo hackerada caalamka ugu khatarta badan aad ay u badan yihiin laakiin muuqaalkan waxaan ku soo koobi doonaa 5 ka mid ah hackerada ugu khatarta badan caalamka iyo waayihii noloshooda midka ugu horeeya waxaa la yiraahdaa Kevin Mitnick wuxuu dhashay sanadka markuu ahaa 1963 dhalashadiisuna waxay tahay Mareykan wuxuu ahaa wiil aad u gacan fudud oo saameyn aad u weyn ku leh Mareykanka markii laga hadlayo hacking-ka Kevin Mitnick wuxuu xirfadiisa bilaabay asagoo da'yar ah sanadku markuu ahaa 1982 wuxuu jabsaday North American Defense Command oo loo soo gaabiyay NORAD waana urur ay ku midaysan yihiin Canada iyo Mareykanka kaasi oo ka shaqeynaya ilaalinta iyo madax bannaanida hawada waqooyiga Mareykanka isla sanadkii ku xigay 1983 waxaa dhacdaas laga sameeyay filim loogu magac daray War Games 1989 wuxuu mar kale jabsaday shirkad lagu magacaabo Digital Equipment Corporation oo DEC loo soo gaabiyay software-kii ay shirkadu isticmaalaysay ayuu koobi gareeyay oo wuxuu ka sameeyay koobiyaal aad u fara badan taasina waxay sababtay in xabsiga loo dhaadhiciyo kadib soo deyntiisii wuxuu jabsaday systemka voicemail-ka shirkad lagu magacaabo Pacific Bell oo ka shaqeynaysay mobile service-yada mobilada shirkadda ka shaqeynaysay ayuu wuxuu u dhaadhacay systemkii voicemail-kooda intii shaqadan uu ku jiray Kevin Mitnick weligiis muusan soo bandhigin xogaha iyo macluumaadka uu jabsado wuxuuba ninkan mar la wareegay gacan ku haynta shirkadda Pacific Bells sababtuna waxay ahayd kaliya inuu cadeeyo inay tahay suuragal in la jabsan karo ugu dambeyn wuxuu ka mid noqday White Hat Hackers waa nooc ka mid ah hackerada waana kuwa sida sharciyeysan wax u hagareeya nambarka labaad waxaa soo galaya Anonymous waa group caalami ah oo hacker ah waxayna caan ku yihiin inay jabsadaan agabyada dawladaha iyo wixii hoos yimaada waxay bilaabeen shaqadooda sanadii 2003 Anonymous is one of the biggest online vigilante groups. Members hack into companies and governments. They have hacked into Donald Trump's personal information. They have posted online his social security number, his cell phone numbers. I'm loud. I'm proud. I don't hide shit. It confuses a lot of people. You've seen them wearing masks in protest. They prefer a life in the shadows. I have a lot of friends that are constantly scared for me and my safety. The FBI has had some success against suspected anonymous associates, arresting at least 20. My personal motivation was to ulajeedadooda ay u ugaarsadaan dawladaha waxay tahay inay shacabka ku soo jeediyaan arrimaha siyaasadda waxay hadda ka hor dhulka la galeen website-ka CIA-da kadibna FBI-da ayaa dabagal ku sameysay laakiin way suurtagali weyday in la ogaado cidda ay yihiin maadaama aan laga haynin wax raad raaca Adrian Lamo waa ninka saddexaad wuxuu u dhashay dalka Mareykanka wuxuuna dhashay sanadii 1981 wuxuu jabsaday shirkado waaweyn oo caalami ah sida Microsoft, Yahoo iyo sidoo kale wargeyska caalamiga ah ee la yiraahdo New York Times 2001 asagoo 20 jir ah ayuu jabsaday shirkadda Yahoo sanadii ku xigtayna wuxuu jabsaday New York Times oo ah warbaahin ama wargeys caalami ah ugu dambeyn waxaa loo bixiyay magac cusub oo ah homeless hackerka aan hoyga lahayn Adrian Lamo ugu dambeyn wuxuu dunida ka tagay sanadii 2018 nambarka afraad Albert Gonzalez wuxuu dhashay 1981 dhalashadiisuna waxay tahay Mareykan oo wuxuu u dhashay dalka Mareykanka sida laga soo xigtay shabakadda New York Daily News Gonzalez oo ku magac dheer Sobnazi wuxuu hayaankiisa ka bilaabay dugsigiisii sare ee Miami High School asagoo 22 jir ah ayaa loo xiray xatooyo ku saabsan lacag milyuumaad gaarayso oo uu kala baxay kaarar bangi si uu xariga dheer uga badbaado wuxuu noqday jaajuus u adeega Secret Service-ka Mareykanka tilaabadaas oo hirgelisay in la soo qabto kuwa badan oo ka tirsanaa kooxdii uu ka tirsanaan jiray maadaama xogtooda uu asaga la wadaagay Secret Service-ka Mareykanka xilligii basaasnimada uu ku shaqeynayay Albert Gonzalez kamuusan waantoobin inuu shaqadiisii hore ee xatooyada inuu sii wato
Gonzalez wuxuu xaday hanti kor u dhaafaysa 108 milyan oo dollarka Mareykanka ah oo ku jirtay kaarar bangi. waxaana iska lahaa shirkado waaweyn sida Office Max iyo Boston Market. Gonzalez iyo tiimkiisa ayaa adeegsaday SQL injection ayagoo samaystay albaab dambe oo ay uga dhacaan shirkado badan isla markaana hanti lacageed oo badan halkaas ay ku dhaceen. 2015 kadib xarigiisii markii maxkamadda la soo taagay, qaadiga xukumayay ayaa sheegay in waxyeelooyinkii uu geystay Gonzalez ay ahaayeen kuwa horay aan noocooda loo arag. nambarka shanaadna waxaa soo gelaya Matthew Bevan iyo Richard Price. waa koox hackers ah oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Britain, kuwaasi oo jabsaday ama haagereeyay shirkado badan oo ay military iska lahaayeen sanadkii 1996. waxaana ka mid ahaa waaxda difaaca macluumaadka oo la yiraahdo Defense Information System iyo bar cilmiyeed ka shaqeysa baaritaanada oo la yiraahdo Korean Atomic Research Institute oo loo soo gaabiyay KARI. Bevan oo lagu naanayso Kuji iyo Price oo sidoo kale asagana lagu naanayso Data Stream Cowboy ayaa lagu eedeeyay inay ku dhawaad bilaabi gaareen dagaalkii saddexaad ee adduunka kadib markii ay jabsadeen waaxda baaritaanada Korea oo ay u gacan galiyeen systemka militariga ee Mareykanka. waxay jabsadeen waax baaritaan oo Korea ay iska lahayd kadibna waxay gacanta u galiyeen systemka militariga ee Mareykanka. BBC-da ayaa sheegtay in ninka la yiraahdo Matthew Bevan falalka uu sameeyay inay ay is-shabahaan nin kale oo lagu magacaabo MC Kynon. waa hacker sidoo kalena system admin ah oo dhalashadiisu tahay Scottish oo ka soo jeeda dalka Scotland, kaasi oo lagu eedeeyay 2002 inuu sameeyay jabsashadii ugu weyneed abid oo la jabsado system ama computer military ay leeyihiin. Matthew Bevan iyo saaxiibkiis Price ayaa ugu dambeyn cadeeyay in systemyada militariga ay yihiin kuwa u nugul in la jabsado ama la haagareeyo. shantaas ayaan kusoo koobaynaa hackerada ugu khatarta badan adduunka iyo waayahoodii noloshooda. oo ku maasantahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ka hesho muuqaalka like saar, wixii fikri fariin aan haysan commenting noogu reeb. haddii aad jecesho muuqaaladan iyo kuwa kale la mid ah, subscribe saara channelka si ay kuu dhaafin muuqaaladaas. inta ku kulmayna muuqaalka xiga waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.